ربي سبحانه وتعالى محوغو غرغاري لا يحي أمديسة رير غزة dhibaatada lagu hayo caruurta la baabi'inayo dumarka la kufsanayo la laynayo ragga waaweyn lagu oysiinayo la laynayo rabbi subxaanahu wa ta'aala wuu u jeediyaa wuuna awoodaa inuu gargaaray muxuu u gargaari laayahayna waa su'aal soo maanta badan dadka qaar isweydiinayaan khaasatan weliba kuwa mulxidiinta ah waa su'aal ama shubha ay soo tuurayaan ma garanaysaa haddii aad ka mid tahay qolooyinka isweydiiyey su'aashaas waad isweydiin lahayd xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa lagu hor cadaabaya lagu hor ciqaabayay haddii aad joogi lahayd ma garanaysaa bilaal markii xabadka laga saarayay dhagaxa kulul kadibna la garaacayay usha lala kor taagnaay axadun axad uu dhahayay haddii aad taagnaa lahayd adiga waxaad dhihi lahayd dee maxamed marka ummadiisii muu marka ilaahay u baryo muu ilaahay u gargaaro ninkan daciifka ah bilaal sidan baa loo cadaaboyaa markii sumaya ma garanaysaa reer ahla yaasir la dilaayay ma garanaysaa haddii aad taagnaa lahayd waxaad dhihi lahayd way gargaarkii ilaahay u gargaaro waa kaasaa sumaya waa la diloyaa marka uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba intuu soo agmar u dhahay sabran ya ahla yaasir fa ina mawcidukum aljanna waad la yaabi lahayd mowqifkaas iyo hadalkaas soo maan haddii aad taagnaa lahayd waxaad dhihi lahayd muu u gargaaro muu ilaahay gacmaha kuru taagto oo weydiista ilaahay wuxuu weydiista uu siinayaa maxaa u dhahayaa sabra waaba la cadaabooya dadkan way dhimanayaane ma inay dhintaan ayaa guusha ay ku jirtaa sidaa baa dhihi lahayd ma garanaysaa sidoo kaleeto haddii goobjoog aad u ahaa lahayd asxaabul ukhuduud markii la cadaabayo mid loogu tuurayay naarta ma garanaysaa ilaa markii dambe hooyo iyo wiilkeeda yar oo naaska markaa nuugay ay ku imaatay doorkoodii in lagu tuuro dabka hooyadii ay u naxdo markaas wiilkeedii yara ay istaagtay kadibna wiilkii ilaahay uu ka hadashiyey uu dhahay hooyo inagu tuur xaq baa ku taaganaane waxaa loo dilayana maxay ahayd wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billah inay ilaahay rumeen oo keliya ayaa naarta loogu guraya ma garanaysaa haddii aad goobjoog u ahaa lahayd maxaa dhihi lahayd dee rabbi way rumeeyeen naarta in lagu guro waa maxayna guusha ku jirto muxuu u gargaari waaya baa dhihi lahayd ma garanaysaa rabbi lama weydiiyey su'aalaha goormay baad u gargaaraysaa rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa dadka wax weydiin doona oo keliya laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun rabbi subxaanahu wa tacaala yafcalu maa yuriid wuxuu doona u sameeyaa ma garanaysaa adi waxaa laga yaabaa inaysan kuu muuqan arrinkan inay guul ay tahay laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisa guul bay ka tahay walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaat bal axyaaun cinda rabbihim yursaquuna farixiin maxay ku faraxsan yihiin waayo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeeshay shuhada uu ka yeeshay walyaxlib allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa rabbi subxaanahu wa tacaala adduunkan uma keenin addoommada ma garanay inay xoogaa iska raaxaystaan jannada iska galaan ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون ما يولس فتنانا يا كدبنا ولس إيجا يا مركز متكفتنا ذا كوكولي السنة يو كدبنا مركز ربي سبحانه وتعالى وأبال مريض دونا إيه متك كفي دونا وريه دونا عليك مسلمين توابا كبحيبا وحلا يسكو عقابة يسو دين تماهن وهذا كبحي متك داهي أردي ربي سبحانه وتعالى متك كصبر يو أرين كان مكرن إسا هذا سوق له إسلامك إسقى أوجيه إسلام كان لما تضلوا هي ضعف في إسلامك أي هذا سوق له يعني مكرن إسا كوا بدل ربي سبحانه وتعالى ذاتكم مركا كلا صار يا كوا كجرنا وكسر يا منافقين بدن بموجين يا ربي سبحانه وتعالى كوا هدرتان سجنا ولا إيه يا سجنا شهود مكرن إسا ربي سبحانه وتعالى نوقر كارو يا بإذن الله يجو بابويو oo la halaagoyo ayuu rabbi haddana u gargaarooyaa iyagoo adduunka joogana rabbi subxaanahu wa tacaala wuu u gargaari doonaa guushana mar unbay takbiirtu isla wada jaan qaadi doonaan biidni illah allahu akbar way yeeri doontaa muslimiintu way guulaysan doonaan biidni illah